warheedha faadarahaal ku faa'iidabuu wahay dalkeenni fogaadaynaba had baan ku fiidin karnaa waxaan idinla wadaagi doonaa diraasad hordhaca oo aan sameynay sanadkan horaantiisii bishii February aan baahinay diraasadaas oo ka hadlaysay hababka kala duwan ee adduunka xukunka loogu baahiyo hadafkan waxa waaye shacabka caadiga ee aanan saameynta xoogan ku lahayn federaaleynta dadka dalka iyo dhaqangelintiisa laakiin ay saameynayso arintaas inaan aragti iska weydaarsano federaalka iyo qaabka kala duwan ee xukunka loo baahiyo nin scholar waxa jira ka hadlay macnaha federalism wuxuu leeyahay waa combination macnaha oo shared rule ama mataqaana self rule macnaha shared rule waxa waa in dawladda kore ay maamusho waxyaabaha dadka dhan ka dhaxeeyo maamul goboleedyada dhan ka dhaxeeyo aan specifically hal maamul goboleed aan qusaynaynin sida arrimaha dibadda kale sida aan sheegnay kale iyo self rule kuna marka waxa waa in qofku waxbarashadaada education kaaga adiga maamultid taas xataa waxay keenaysaa tartan inuu dhaco oo maamul goboleed macnaha inaan wadanka lagu hal qof oo macnaha fikirkiisa inuu ku socon oo la helo dad kala duwan iyo administration kala duwan iyo oo marka approach marka kala duwan marka la qaato iyo waxay keenaysaa marka tartan in la galo waxa laga yaabaa state inuu fiicnaado state kale inuu hoos u dhaco marka waa la kala baranaya marka wax meeshii hal mar mataqaan lagu hoobalayo macnaha oo hal qof inta la maamulo meeshii sida hadda Soomaaliya haysto kale waxay dimaan gareeyeen marka gobolada qaarkood in awoodda la baahiyo oo gobolada la siiyo awood ay doortaan dadka madaxda ka ah dadka hogaaminayo maxaa la dhihi jiray service-ka u baahnaayeen ama adeegyadii mataqaan bulshada sida driver license-ka inay macnaha baabuurka lagu wada maxaa la dhihi jiray batantaa baabuurka iyo maxaa la dhihi jiray waxyaabaha oo dadka u baahan yihiin oo macnaha oo la yiraahdo asaasiga adeegyada asaasiga ah in laga helo gobolada inay mataqaana doortaan dadka matalaya federal government-ka inay doortaan dadka gobolada madaxda uga naqanayo oo ayaga mataqaana madax u naqanayo marka taas waxay keentay marka in federaalku loo arko inuu yahay xal macnaheedu ma aha inaan support gareynayno ama inaan diideyno federalismka fakirkan oo federaalka Soomaaliya cidii doonta ha u keento aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay federaalka inuu anfacayo ee dadka hadda dhulka ku soo yaraa rabo oo u digayo ku yaraanaan la yaamaasin laakiin dhinaca Soomaaliya markaan ka fiirino dadkii federaalka qaatay ma ahayn dad oo macnaha fikirka Soomaalida ummadda Soomaaliyeed wada ma ahayn dad Soomaalida matali kara ma ahayn marka waxaan qabaa dad yar oo kooban oo gacmo shisheeye ka dambeeyaan inay noo keeneen federaalka laakiin anigu waxaan ku bogaadinayaa goboleysiga oo aan ku jeclahay laba sababood sabab waa horumarka ay higsanayaan oo gobolba gobolka kale tartankii meel fiican marayo waa midka kale waxa waaye haddii la istiriray walaalkayga iga soo horjeeda wuxuu haystaa beertaydii wuxuu haystaa baabuurkaygii walaalow beertii iyo baabuurkaysii waa heshiinay waa ku rabaaye may rabtaa kala maraysatannahe waa isu baahannahay ma kala goono dad walaalaana war beertaysii maya kuma siinayo baabuurkaysii kuma siinayo taas mayna kala qabataa jeer taa la xilliyo oo beerta nin walba walaalkay beertayday siiyo anna aan gurigiisa siiyo oo baabuurkiisa siiyo haddaan taas samayno goboleysi uma baahnin waxna uma baahnin waxa goboleysiga keenaya waa cuqdada nagu kala jirta federaalka maanta jira waxaan u fahmnay inuu yahay qabyaaladan weligeena ka qaylinayna sii xoojiyay maxaa jira hadda ma jiro wax la yiraahdo federal state ee waxa jira federal qabiil hebelaan nahay meel hebelaan degannahay annaga madax bannaan war qabiilkii waa soo kan ka cararayna ma qabaa'ilkii isu dhawayna wax isku darsamayaan oo say u dirreenba lama heshiisiin waxay tabayaan inay maartay heshiiskii ka maqan yahay iyo wax wadaagii ka maqan yahay maxaa isu carfintoodii iyo bogis burcadmo isu marintoodii maqan waxaa maqan is-aaminaaddoodii nin walba nin anigu meesha aan deganahay anaa iska leh waa inaan anigu ka talshaaho oo maartay jeebka ku rito waa federaalku Soomaalida wuu anfacaya ما أنفعي هذا من تاجنا ولا تاجين هذا تطبيقي تاجين تاي ما أنفعي xilligeed wala soo dhaaf
hadda gobollo ka mid ah tijaabiye shaqadu way wataan inta kale sidee loo dhaqan geli karaa muhiimadu ay tahay in laga hadlo soo marka saaki sidee loo dhaqan geli karaa ay taageenta sidee loo dhaqan geli karaa rama karaa iyo qurux badan in loogu daro iyadoo laga fiirinayo Soomaalinimo iyadoo laga fiirinayo gobol hebel maamul dhistay gobol hebel wax ma laha gobol hebel wax uu leeyahay Soomaaliya gees walba oo ka tagto kheyraad uu leeyahay gobol ka kheyraad badan ma lahan federaalka dadka in la baro waayo in la isku qaldin waayo qarannimada iyo sovereignty-ga Soomaaliya iyo federalismka inaan la isku qaldin mushkilada jirta dadka political elite-ka Soomaaliya dadka sheeganayo ayay xataa fahamsaneen tusaale ahaan shalay Somaliland maamulkeeda iyo Soomaaliya ay wada hadleen waxa la dhahay Puntland ka hadlayso tusaale ahaan Puntland ka hadlayso ayaa ka hadlaysa yani si officially marka waxa iskaga dhaxyacsan dadka xataa hogaaminaya oo la rabo inay dadka badbaadiyaan ayay bahasha fahamsaneen marka waxaan soo jeedin lahay dadka in la baro waxaan inta aanan lagu cararin federaalka waxa wato siiba hadii loo raaco Ethiopia wadato federaal Soomaali danna uma aha shacbigeedana waxba ka mooga shacbiga waxa uu noqday iriyo uu noqday runtii markii loo hadlo waayo nin wax u sheegayna ma jirto marka maadaama hadda federaalka soo dhaweyn wuxuu noqonaa dadku sidii la isugu keeni lahay iyo sidii wax loogu sheegi lahay ayuu noqonayaa wax hadda dhibaato ah jiran ma jirto kulay dawlad dhexe oo xukunta ayaan leenahay oo hadda dawladna aan ma hayso dawladeena dhexe noo joogto tanna waxa laga gaaraa sidii dadka iskugu imaan lahaayeen darteed federaalka faa'iidabo wahay warheedha federaalku faa'iidabo wahay dalkeenni fogaadaynaba baan ku fiidin karnaa kala maqnaanteena rabbi yowmadloona geelin hayadda noo duubatay daa'inkay ku daa waliba deerejooyin iyo deeqaloo ku si waa idin ducaynaynaa maama annaga inaad nooma waxaan rabnaa aad waxna tustaan